Maanta insha Allah videogeena waxaan kusoo qaadan doonaa 10 wadan ee aan haba yaraatee wax bad aan lahayn balse runtii aad u weyn. Kaalinta tobnaad waxaa soo galay Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Waa wadan ku yaala bartamaha qaaradda Afrika. Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika waa dalka tobnaad ee ugu weyn dunida oo wax bad aan lahayn. Dalkan ayaa ku fadhiya dhul ay dhan tahay tiradiisu 620,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayaa xuduud la wadaaga 6 wadan oo ay ka mid yihiin dalka Cameroon, Chad, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Koongada Caadiga ah, iyo Suudaan. Dalka waxaa ku nool ku dhowaad 4,700,000 oo ruux. Kaalinta sagaalaad waxaa soo galaya wadanka Afghanistan. Dalka Afghanistan ayaa ku yaala koonfurta Aasiya. Dalkan ayaan wax bad aan lahayn. Dalkan ayaa ku fadhiya dhul ay dhan tahay tiradiisu 652,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. Dalkan waxaa ku nool dad ay tiradoodu dhan tahay 33,332,000 oo ruux. Afghanistan ayaa xuduud la wadaaga 6 wadan oo ay ka mid yihiin dalka Bakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Shiinaha iyo weliba dalka Iiraan. Kaalinta sideedaad waxaa soo galaya dalkan ku yaala Afrika. Waa dalka Zambia. Dalkan ayaa ku yaala koonfurta Afrika. Dalkan ayaan wax bad aan lahayn. Dalkan ayaa ku fadhiya dhul ay baaxadiisu dhan tahay 752,618 kiiloomitir oo isku wareeg ah. Dalka Zambia ayaa xuduud la wadaaga 8 wadan oo ay ka mid yihiin Zimbabwe, Angola, Botswana, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Namibia, Tanzania, Mozambique iyo dalka Malawi. Tirada dadka ku nool dalka Zambia ayaa ah 16,021,000 oo qof. Kaalinta toddobaad waxaa soo galaya dalka Bolivia. Bolivia waa dal ku yaala bartamaha qaaradda Koonfur Ameerika. Wadankan ayaan wax bad aan lahayn. Dalkan ayaa ku fadhiya dhul ay dhan tahay tiradiisu 1,098,581 kiiloomitir isku wareeg ah. Dalkan ayaa xuduud la leh 5 dal oo ay ku jiraan Argentina, Brazil, Chile, Paraguay iyo dalka Peru. Dalka Bolivia ayaa waxaa ku nool dad ay tiradoodu dhan tahay 11,410,651 oo ruux. Kaalinta lixaad waxaa ku jira waa dalka Itoobiya. Itoobiya waa dal ku yaala bariga qaaradda Afrika mise geeska Afrika. Dalkan ayaan wax bad aan lahayn. Dalkan ayaa ku fadhiya dhul ay baaxadiisu dhan tahay 1,104,300 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. Dalka Itoobiya ayaa waxaa ku nool dad ay tiradoodu dhan tahay 99,465,819 ruux. Waana dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika marka laga reebo dalka Nigeria. Itoobiya waxay xuduud la wadaagtaa 6 wadan oo ay ka mid yihiin dalka Suudaan, Kenya, Eritrea, Djibouti, South Sudan iyo weliba dalka Soomaaliya. Kaalinta shanaad waxaa soo galaya dalka Mali. Mali waa dal ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Dalkan ayaan wax bad aan lahayn, wuxuuna dhul ahaan ku fadhiyaa dhul ay tiradiisu dhan tahay 1,240,192 kiiloomitir oo isku wareeg ah. Dalkan ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa xuduud la wadaaga
7 dal ay ka mid yihiin dalka Algeria, Guinea, Cote d'Ivoire, Niger, Ivory Coast, Senegal, Burkina Faso, Mauritania iyo Nigeria. Dalkan dadka ku nool ayaa waxaa tiradoodu ay dhan tahay 14,517,176 milyan oo ruux. Kaalinta afraad waxaa soo galaya waa wadanka Niger. Niger waa dal ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Dalka ayaa ah kan afraad ee dunida ugu weyn oo aan wax bad ah lahayn. Dalkan ayaa ku fadhiya dhul ay dhan tahay baaxaddiisu 1,267,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. Niger waxaa ku wareegsan 7 dal ay ka mid yihiin dalka Algeria, Benin, Burkina Faso, Chad, Liibiya, Mali iyo weliba dalka Nigeria. Niger waxaa ku nool dad ay tiradoodu ay dhan tahay 18,637,752 qof oo ruux. Kaalinta saddexaad waxaa soo galaya waa dalka Chad. Chad waa dal ku yaala bartamaha Afrika. Dhulka uu dalkan ku fadhiyo ayaa lagu qiyaasaa 1,284,000 oo kiiloomitir isku wareeg ah, taas oo ka dhigaysa dalkan kan saddexaad ee ugu weyn dunida, kaas oo aan wax bad ah lahayn. Dalkani wuxuu xuduud la wadaagaa 6 wadan oo ay ka mid yihiin dalka Cameroon, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, Liibiya, Niger, Nigeria iyo weliba dalka Suudaan. Tirada dadka ku nool dalkani ayaa ah 13,670,000 oo ruux. Kaalinta labaad waxaa soo galaya waa wadanka Mongolia. Mongolia waa dalka labaad ee ugu weyn oo aan wax bad ah lahayn. Tirada guud ee dalkani ku fadhiyo ayaa ah 1,566,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. Mongolia wuxuu ku yaalaa waqooyiga Aasiya, wuxuu xuduud la wadaagaa 2 dal. Labadan dal oo kala ah Shiinaha iyo Ruushka. Tirada dadka ku nool dalka Mongolia ayaa keliya ah 3,081,677 qof oo ruux. Kaalinta koowaad dabcan waxaa ku guuleystay dalka Kazakhstan. Waa dalka ugu weyn dunida, kaas oo aan wax bad ah lahayn. Dalkan ayaa ku fadhiya dhul ay dhan tahay 2,724,900 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. Dabcanna dalkana waa kan 9aad ee ugu weyn dunida oo dhan. Kazakhstan waxa uu ku yaalaa bartamaha dalka Aasiya. Wuxuu xuduud la wadaagaa 5 dal, waxaana ka mid ah 5tan dal wadanka Shiinaha, Kyrgyzstan, Russia, Turkmenistan iyo Uzbekistan. Dalkan waxaa ku nool dad ay tiradoodu ay dhan tahay 18,050,488 dad ah.